halganka iyo shirqoolka ay reer galbeed ku degan Soomaaliya maaha mid lagu soo koobi karo muuqaal yar oo 30 daqiiqo ah sidoo kale halganka lagu jiro shidaalka Soomaaliya maaha mid ku eeg Kenya ee waxa tartan dheer u soo galaya shirkado badan oo ka iman jireen Mareykanka iyo Norway xilligaas ku soo dhawow hadda barnaamijkeena oo fidsan sidoo kale daawadadku cusubtay channelkeenan subscribe like kana saar ku soo dhawaada barnaamijkeena oo fidsan ku soo dhawow channelkeenan Xamza Joogane subscribe like kana saar si ay ku soo gaadhaan muuqaalo kale oo badan shirqoolkii ay dejiyeen reer galbeedku oo ahaa burburinta Soomaaliya waxa lagu soo afjaray shir dhacay 29 November 1989 shirkad laga leeyay xaggaas iyo Mareykanka oo lagu magacaabo Conoco oo soo saarta ama ka shaqeysa hawlaha shidaalka iyo gaasta ayaa waxay wada fadhiyeen Maxamed Siyaad Barre waxaana soo bandhigeen heshiis oo sidan u dhacayay in ay 20 sano ka soo saari doonaan shidaal goobo ku yaala waqooyiga bari oo hadda loo yaqaan Puntland heshiisku inta ku muuqeen waxa kale oo ku jiray in muddada 20 sano aanay Soomaalidu ku yeelan doonin waxba xitaa wakiilka socda Soomaaliya ma soo gali doono uu leeyahay ma soo dhigi doono meesha ka socoto hawshu haddaba heshiiskaas si loo waafajiyo xeerka caalamiga ah ayuu Maxamed Siyaad Barre warqadii hor dhigay xafiiskii gariiqaanka guud waxaanu xafiiska ka codsaday in ka tala bixiso waxa shirkadaasi codsanayso muddo gaaban kadib wuxuu gariiqaankii dawladdu Maxamed Siyaad Barre u gudbiyay talooyinkan wixii dhulka badaha iyo bariga laga soo saarayo ama lagu guraayo inay tahay waajib inuu joogo halkaas qof ka socdo dawladda oo isla markaana aqoon dheeraad u leh waxaan halkaas lagu ogaaday inuu heshiiskii Conoco yahay mid dhagar ku dhisan haddaba is aragii labaad Maxamed Siyaad Barre iyo wakiilkii shirkadda Conoco Mr. Raymond ayaa mar labaad ku kulmay xaruntii madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo ka shidaal qaadanaya taladii uu siiyay xeeriqaankii ayaa hadalka qaatay waxaana wakiilkii ka codsaday laba arrimood mid koobaad meesha wax ka baariyaan waa inuu joogo wakiil ka socda Soomaaliya oo isla markaana aqoon u leh waxyaabahaas mid labaad inay Soomaalidu yeeshaan saami gaadhaya 40% haddaba sida taariikhda ku xusan iyo xogo kale oo kala duwan ayaa sheegaysa in wakiilkii shirkadii Conoco Mr. Raymond inuu ka diiday codsigii Maxamed Siyaad Barre daqiiqada markii la murmayay ayuu Maxamed Siyaad Barre heshiiskii indhaha ka dhuftay wakiilkii ka socday shirkadda Conoco Mr. Raymond wuxuu amar buuxana ku siiyay inuu iskaga tago dalka wuxuu Maxamed Siyaad Barre u sii raaciyay Soomaaliya iska leh oo Conoco amar ma siin karto haddaba daawadinta Soomaaliya nuugiga barnaamijkeen inta ku kulmayna barnaamij lamid ah waxaan naga tagnaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxaad ka faa'iideynaa xaq wasi commentiga nugula wadaag si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamza Joogane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh